buurka basaasiinta adduunka wargeyska telegraf ee kasoo baxa waddanka Britain ayaa dhawaan daabacay maqaal dheer oo uga hadlayo tartanka ay quwadaha adduunka ugu jiraan inay kordhiyaan saameynta ay ku leeyihiin dalka Jabuuti. Dalka Jabuuti oo ah dal yar oo ku yaala geeska Afrika ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay dal ay saameyn weyn ku leeyihiin wadamada quwadaha waaweyn, kuwaasoo basaasiintooda usoo dira halkaasi. kaga boga muuqaalkan oo dhammaystiran insha Allah. warbixinta wargeyska ayaa Jabuuti lagu tilmaamay buurka basaasiinta ee caalamka ay ku leeyihiin wadamada reer galbeedka ayaa tartan kula jira Shiinaha si ay uga saameyn bataan dhinaca Jabuuti. albaabka Suez Canal waddankan yar ee Jabuuti waxaa ku yaala marinka Bab al-Mandab oo ah halka loo maro kanaalka Suez oo ka mid ah marinada maraakiibta ganacsiga ee ugu mashquulka badan caalamka. waxa uu waddanka dhulkiisa ku fadhiyaa qiyaastii 23,000 oo kiiloomitir, tirada shacabkiisana waxaa lagu sheegaa 942,000 sida wargeysku u xusay. dekada uu leeyahay dalka ayaa u ah isha dhaqaale ee ugu weyn, si ay Jabuuti u leedahay marinada isku xira qaybo ka mid ah Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa sabab u ah inay si gaar ah muhiim ugu noqoto dalalka ugu awoodda badan caalamka oo saldhigyo militari ka samaystay si ay u xaqiijiyaan inay howshoodu ay kala socoto. Faransiiska oo ah dalkii hore u gumaysan jiray Jabuuti ayaa ilaa hadda militarigiisu ay joogaan waddankan, sidoo kalena waxaa halkaas lagu martigeliyaa saldhigga ugu weyn ee uu Mareykanku ku leeyahay qaaradda Afrika. Shiinaha ayaa isagana Jabuuti ka samaystay saldhiggiisii militari ee ugu horeeyay ee ku yaala meel ka baxsan dalkiisa, halka Jabbaan ay ku leedahay saldhiggeedii ugu horeeyay ee ay dibadda ka samaysato wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. Jabuuti waxay dhanka kale marin ganacsi oo muhiim ah u tahay waddanka deriska la ah ee Itoobiya. buurka jaajuusiinta caalamka marka la eego dalalka awoodda badan ee ku tiirsan Jabuuti, waxa uu waddankan yar isu bedelay buul ay ku xaroodaan sirdoonka adduunka. arrintan oo aan mar dhow bilaabanin waxay soo socotay muddo aad u dheer. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa tartan hoogan ugu jira sidii ay awooddooda dhanka sirdoonka ugu xoojin lahaayeen gudaha Jabuuti. mid walbana waxa uu doonayaa inuu ku adkaado ciyaartaas. horaantii sanadihii 1920-meeyadii booskan waxaa ku jiray magaalada Oslo. 40-meeyadii waxay ahayd Casablanca oo dalka Morocco ah, halka 50-meeyadiina ay ahayd magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. maanta dad badan waxay dhihi karaan caasimadda basaasiinta adduunka waa waddan aan la aqoonin oo ku yaala Afrika oo ah Jabuuti. sidoo kale waxaa la sheegay in saldhigga militariga Mareykanka Jabuuti uu yahay Camp Lemonnier saldhigga la yiraahdo. saldhigga Shiinahana uu ku yaalo meel dhowr meel u jirta halkaas oo ah cirifka kale ee xeebta. dhinaca galaangalka iyo saameynta, reer galbeedka ayaa dalkan u adeegsada inay tartanka dhinaca galaangalka iyo saameynta kula loolamaan Shiinaha oo waayadii dambe kusii xoogeystay dhankaas. Beijing ayaa faraqa ku xiratay wadamada Afrika oo ay la yeelatay xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed labadaba. hoteelka Kempinski ee badda qarkeeda ku yaala waxaa isugu yimaada diblomaasiyiinta iyo saraakiisha militariga wadamada kala duwan. marka laga reebo Shiinaha, xiriirka ka dhexeeya waa mid nabadeed, balse meesha kama marna in dareen uu jiro. sidoo kale dalka Jabuuti isku darka kumanaan askari oo ka kala socda Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska, Jabbaan, Isbayn iyo Talyaaniga ayaa ku wada sugan dalka Jabuuti. saraakiisha reer galbeedku waxay qiyaasaan in tirada ciidamada Shiinaha ee ku sugan Jabuuti ay gaarayso ilaa 10,000 oo askari oo ku qarsan saldhigga sirta ah ee Shiinaha. askarta lama arko iyagoo banaanka jooga. qof ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay oo ka gaabsaday magaciisa ayaa yiri, halkan ayaan maraas wax walba, balse uma maleynayo inaan arkay qof banaan ku soo baxay ama gudaha sii galaya. yaa og waxay sameynayeen gudaha.
dalalka qaar jabuuti waxay u joogaan inay la socdaan mukhalisiinta hubka iyo daroogada kala gudbiya iyo la dagaalanka burcadbadeeda. waxaa la rumaysan yahay in marinka biyaha ee aagaas ay adeegsadaan dadka hubka u kala daabula meelo kala duwan oo ka tirsan gobolka bariga dhexe. shiinaha wuxuu jabuuti u yahay waddanka ay ku taalo dekeda uu ku ilaashanayo lacag dhan 250 bilyan sanad walba uga soo xaroota ganacsiga uu ka sameeyo Afrika. xukuumadda Beijing waxay saldhigga militari Jabuuti ka samaysatay sanadkii 2017 durbana way sii ballaarisay si ay u geyso markab weyn oo ah nooca diyaaradaha cambaara. isu dhawaanshaha saldhigyada militari ee Mareykanka Shiinaha ay ku wada leeyihiin Jabuuti ayaa horeyba u abuuray xasarad diblomaasiyadeed oo culus. markay diyaaradaha Mareykanka aad ugu dhawaadeen saldhigga Shiinaha sanadkii 2018 militariga Shiinaha waxay adeegsadeen iftiin ay ku cawireen duuliyayaasha Mareykanka sida la sheegay warbixino fara badan oo ka soo baxay saraakiisha Mareykanka. fadlan subscribe like share ha ka iloobin insha allah gambaleelkana furo si muuqaaladan soo dhigno ay kuu soo gaaraan. noqo qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeena.